salaamullaahi calaykum halkan waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah guuldaradii farmaajo kadib taliyaasha ciidamada ee farmaajo taageersan oo bilaabay inay xaraashtaan hubka iyo qalabka kale ee ay ku shaqeynayaan laamaha ammaanka qaarkood gaar ahaan taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ra'iisul wasaare Roble oo gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kala hadlay dardargelinta doorashooyinka dalka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka oo maanta kulmaya iyo xil wareejin ka dhacaysa golaha in ka badan 100 xildhibaan oo dalka iskaga dhoofay kadib doorashooyinkii ay ka qayb galeen dawladaha heshiiyana aaday iyadoo la filayo in dawladahaasi ay kala hadlaan sidii codka u sii lahaayeen shakhsiyaadka ay doonayaan olole xoogan oo ay wadaan musharaxiinta dalka oo ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maxay ku kala duwan yihiin ololaha musharaxiintu ay wadaan qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaynu eegi doonaa u diyaar garooba warka dunida TV haddii ay tahay daawada markii kugu horeysaan soo booqato ha moogaana subscribe saarto YouTube-kan oo aad ka mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid tan iyo guuldaradii farmaajo ka soo gaartay doorashada gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya warar muhiim oo ay yeeshay dunida TV waxa ay sheegayaan in saraakiisha farmaajo taageersan ay bilaabeen inay hubkii dawladda iyo agabyadii kale ee dawladda ee la soo kordhiyay 5 sano ay dib u iibiyaan si ay lacag fara badan uga sameeyaan saraakiishu waxay rumaysteen inaysan dib u soo laaban doonin xukunka farmaajo isla markaasna aysan ka sii arrimin doonin talisyada hay'adda waxa la sheegay in qaar ka mid ah hubka dadka shacabka laga gadanayo halka sidoo kale qalabyada casriga ah ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaarkoodna la sheegay in loo dhoofiyay dalalka dariska la ah Soomaaliya wararka iyo macluumaadyada aynu helay ayaa sheegaya in boob xoogan uu ka dhex socdo hay'adaha dawladda kuwaas oo ay doonayaan saraakiisha iyo xubnaha kale xilliga kala guurka inay hantida dadweynaha iyo sidoo kale hubka dawladda ay iibsadaan caadiyanba markii qolo xukunka joogtay ay ogaadeen in looga adkaado isla markaasna isbedel uu soo wajahan yahay waxay bilaabaan boob xoogan oo ay hantida qaranka ku boobayaan si ay u sameystaan hanti ay ku noolaadaan inta aysan xukunka helin waxa ay doonayaan in ay ka shaqeystaan lacag fara badan maadaama ay og yihiin in xukunka aysan ku soo laaban kooxdoodu isla markaasna ay wajihi doonaan 5 sano oo mucaaradnimo wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo hubka iyo sidoo kale agabyada casriga ee hay'adaasi sida kaamirooyinka loogu talagalay inay wax basaasaan kuwa loogu talagalay in lagu sugo ammaanka iyo qalabyada kale dib loo iibinayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa la sheegay in xilligan dhaqdhaqaaqyada iyo boobka hantida dadweynaha ee xilliga kala guurka oo aad u siyaaday iyadoo kooxda xukunka joogta ay rumaysan tahay in iminka gabalkooda uu dhacay tan iyo markii looga guuleystay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee arrinta dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan looga hortago isla markaasna dadka Soomaaliyeed laga badbaadiyo dhibaatada ka dhalan karta boobka hantida siyaasiyiinta Soomaalidu waxay caan ku yihiin inaysan ilaalin oo aysan xafidin hantida dadweynaha iyo sidoo kale hubka dawladda waxa la kala qaataa gawaarida sidoo kale hubka ay dib loo gataa iyadoo sidoo kale lacag laga sameeyo dhulka dawladda oo xilliga doorashooyinka la kala iibsanayo sigaasataba haatee arrintan ayaa loogu baaqay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka inuu qaado tilaabo degdeg ah oo la xiriirta sidii loola socon lahaa hantida dadweynaha iyo sidoo kale timida loogu talagalay inay dawladdu ku shaqeyso sida loo kala boobayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe kulanka sidoo kale waxa qayb ka ahaa gudoomiyihii ku meel gaarka ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee doorashada hogaaminaya Cabdisalaan Xaaji Liibaan Dhabancad waxa sidoo kale kulankaasi qayb ahaa wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo siyaasiyiin waxaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyadoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu bogaadiyay habka ay doorashadu u dhacday iyo sidoo kale doorka ay qaateen gudoonka ku meel gaarka ee la xiriira doorashada hoggaankeeda
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa gudoonka labada aqal ee dalka ugu baaqay inay laba jibaaraan ka shaqeynta sidii doorashada xasiloon ee Soomaaliya ay u sii socon lahayd loona sii gabagabay lahaa maadaama ay harsan tahay oo kaliya qabashada doorashada madaxweynaha. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la laba jibaaro shaqada ku saabsan in doorashooyinka la soo gabagabeeyo dalkana laga qabto doorashada xor iyo xalaal ah oo ay ku qanacsan yihiin dhammaan musharaxiinta. Gudoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay inuu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uga mahad celinayo garab istaagii iyo dadaalkii xooggan ee doorashooyinka wuxuuna sheegay inay ku dadaali doonaan soo jadwaleynta iyo ka shaqeynta arrimaha la xiriira doorashada ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Soomaaliya waxaa la filayaa in 15 bisha soo socota ka hor la qabto doorashada maadaama ay dhammaan go'ayaan deeqaha wadamada heshiisay ay ku kabaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasoo dib u dhac ku noqonaysa taakuleynta qaranka. dadaalka xooggan ee la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka ayaa si dardar leh uga soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulmaya maantay. Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya kulankooda waxaa diiradda lagu saarayaa hadal jeedinta gudoonkii ku meel gaarka ah ee soo hogaamiyay doorashada gudoonka Golaha Shacabka iyo sida ay marxaladaha u soo marsiiyeen doorashada gudoonka. kulanka oo ka dhacaya Villa Hargeysa sidoo kale waxaa lagu wareejin doonaa xilka gudoonka. Gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo dhawaan ka haray tartanka gudoonka ayaa biri xilka ku wareejinaya gudoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka. ajendaha ayaa lagu sheegay 3 qodob oo kala ah koow hadal jeedinta Cabdisalaan Axmed Dhamancad oo ah gudoomiyihii ku meel gaarka ah, 2 hadal jeedinta iyo xil wareejinta Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Baarlamaanka 10aad, 3 hadal jeedinta Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad ee dalka. kulanka ayaa lagu wadaa sidoo kale in diiradda lagu saaro arrimo la xiriira si socoshada howlaha looga baahan yahay Golaha Baarlamaanka Soomaaliya. dhawaan ayaa la filayaa in Golaha labada aqal ee baarlamaanku ay u diyaar garoobaan qabashada doorashada madaxweynaha waxaana iminka la sheegay in arrintaani looga gol leeyahay sidii loo dardar gelin lahaa howlaha doorashada ee loo baahan yahay. iyadoo xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ay dhawaan gudoon doorteen iyo aqalka saraba waxaa la sheegay in xildhibaanadii ugu badnaa ay dalka iskaga baxayaan. in ka badan 100 xildhibaan ayaa la sheegay in saacadii la soo dhaafay ay ka dhoofeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. xildhibaanadana waxa ay aadeen dalalka Soomaaliya la dariska halkaas oo ay ka socoto ololaha madaxweynaha Soomaaliya. xildhibaanada ayaa qaatay fasax gaar ah kuwaas oo ay ku dalbanayaan in maalmaha ciidaha ay ku soo ciidaan meelo ka baxsan Soomaaliya. safarka xildhibaanada waxay dib u dhigi kartaa doorashada madaxweynaha siday aaminsan yihiin qaar ka mid ah dadka siyaasadda taxliiliya. wadamada Kenya, Turkiga iyo sidoo kale dawladaha Carabta qaarkood ayaa la sheegay inay u jahaysteen qaar ka mid ah xildhibaanada cusub. waxaa la filayaa inta ay ku sugan yihiin wadamadaas inay kulamo gooni la qaataan xubnaha musharaxiinta iyo ololayaashooda ku sugan magaalooyinka Nairobi iyo Ankara iyo sidoo kale qaar ka mid ah dalalka Carbeed oo wakiiladooda u jooga wadamada Geeska Afrika ay dadaal ugu jiraan sidii doorashooyinka Soomaaliya ay saameyn ugu yeelan lahaayeen. xildhibaanada dalka iskaga baxay waxaa la sheegay inaan la ogeyn safarkooda inta uu qaadan karo inkasteoo gudoonku ay ku dadaalayaan in doorashooyinka madaxweynaha la dedejiyo. warkaas ka daawanaysan Dunida TV waa geyntaas sidaas iyo nabadgelyo.